أن أجهرينتي دكتورة سميرة سودو ونقوم هذا علنا وقت قالقة أن كسودو CBA-TV يبرامج كديرة بالشدة ما شاء الله باقي قالي عيد آدم لوهي وأنا كل وهي تفيجا وأنا كمد علنا يا عسوم دين قالقة وبالشدة الصومالية waxay isweydiinayaan waa Tuma Samiir Cabdullaahi bal in yaro kooban taariikhdaadii halkaad ku dhalatay waxbarashadii iyo hawlahaaga ugu horeyn aad u maasan tahay magacaygu waa Dr. Samiir Cabdullaahi Bootaan waxaan qalin jabiyay sanadka 2019 kuliyadda caafimaadka gaar ahaan dhakhtarnimada waxaan ka howlgalaa hadda Isbitaal Martiini waxaan ku dhashay magaalada Dhuusmareeb caasimadda Galmudug dugsigeygii dhexe hoose iyo sarana waxaan kusoo qaatay isla magaaladaas Dhuusmareeb iskuul Ablaal kadibna magaalada Muqdisho intaas ka horna caafimaadka ka horna waxaan ahaa wariye ilaa heer agaasimo kasoo gaaray laakiin shaqadaas wariyenimada 2013 iska dhaafay gabi ahaanteeda hadda waxaan ahay dhakhtar iyo sidoo kale waxaan rabaa inaan kusoo biiro saaxadda social media laftirkeeda hadda aan bilaabay marka si aan dadka uga wacyigeliyo caafimaadka marka waxaan gareystay inaan bulshada ka wacyigeliyo dhanka caafimaadka oo aan ku ekaanin isbitaalka iyo bukaanka imaanaya kaliya barnaamijkan inta ugu badan diiradda waxaanu ku saari doonaa shaqadii adkeeda la xiriirtay cudurkii COVID-19 bal sidaan la socono kiiskii ugu horeeyay Soomaaliya cudurka COVID-19 sanadkii 2020 bishii 3 soo gaaray xilligaas ma kamid ahayd dhakhaatiirta Isbitaal Martiini ciido markay noqotay dhakhaatiirta Isbitaal Martiini xilligaas kama aan mid ahayn maalinkii kiiska ugu horeeyay laga sheegayay xarunta xalane aniga waxaan tababar ugu jiray isla magaalada Muqdisho waxaan loo tababarayay si hadii lacal xanuunka wadanka soo gaaro aan uga hortag lahayn waxa xasuustaa maalinka training-ka noo soo xiraay ayaa waxaan la soo gaaray inaan qofka ugu horeeyay la helay taasina arrin aad u cabsi badan ay ahayd oo soo wajahday laba bari kadibna ama 19 March 2020 waxaan nogala wacay si degdeg ah meel la yiraahdo dry port ama dekada qalalan oo laga dhigay markaas xaruntii karantiilka xanuunku waa intuu soo wadanka soo gelin ka hor waxay ahayd wadanka in laga celiyo oo laga hortago qofkii banaanka meelaha infected ka ah ama wadamada cudurrada ka dilaacin ka imaadana dadka laga xareeyo oo laga karantiilo marka xaruntii karantiilka ugu horeysay waxaan ahaa waliba qofkii ugu horeeyay xaruntaas ka shaqeyn gala laba maalin ayaan dhey kaliya ka shaqeynayay خميس جمعة أنا شقينا سبدي تيم كلا دان يقصوا بيرين هبين نويل أجيب بدلاي أنا لا ما أنا كشقينا مركب هو رئيسنا لو عنا لو رقفنا لو وعي وذكر صوت وبرية كدي بحنا نقول يدي وحالك يعني وذاك إماضي كوي تنقف أو قيب تشينا كي ماتي قيب تلاني كي ماتي مركب نلاقي يعني وحنا نقول يدي ذاك كان واسسبكتد معناه ولا جش كيسين يعني ما دام تشينا التلاني لبدي كو حنون تشينا قبل هذا سك أد أسامي كديبنا تلاني وهوضن كلا بعد كحري marka labo dad xaqas ka yimid waa kuwana waa laga shakisan yahay lama hubo wadanka lagu dhexdin karo weena u shaqaysiin waxaan xasuustaa maalinkaas teamkii kale oo dhan shaqada ka carareen bal aniga daftarkii waan baqay oo sababtoo ah covid markuu bilaabanay ama corona qof walba uu ogyahay saameynta uu lahaa iyo sidii looga baqayay si halista ugu jirto bal su'aashii aan markaasi si degdeg ugu fikir waxay ahayd waxaad barat kuliyadda caafimaadka waxaad ku tala gashay inaad naftaada hurto waxaad ku tala gashay inaad dadka u shaqeyso haddaad maanta carartid xanuunka ku dhaafaya وامية أدي لعل أي كوفيد أو ودن كسوقلو مادام صفوت لوكال قاضي كرو جوريجا قدرت شيء فتم كنا بتقلنا وامية وكهذا إيمانه ضد سريرها كتيرة أو أنكعين أو بالتوتلي بأن دقاقين أيو كل عاد تحسنا وحكينا إسا فرصة ضدك بنانك هذا يقدر أوكي كلام مادام يصير شيء ملك شانس أنا أقول بتبادي كرو وحن قان صدي إن الله ترى صار توش قدنا عنقله سياس أنكو شقة بلعبي كارانتيلك أما حلقة حلقة هذا إيه maxay yeelay ma jiro wax lagu difaaci karo qalabka dadka iyagu xiran ayuu ku dhacay sidaas darteed kaliya wax la iska difaaci karo waxay ahayd alla ka cabsi in ilaahay la baryo subax walba quraan la akhristo taas ayaan ku dadaali jirnay inta waa gartay waxa jirtay markii corona soo gaaray Soomaalida inteena badan hore dadka cudurrada ka aamineen tusaale ahaan hadalhaynta ugu badneed xilligaas jirtay waxay ahayd cudurkan gaalada loogu talagalay inagu ma dhacayo bal ka waran marka lagu keeno qof xanuunkan uu ku soo dhacay ama qof waayeel oo adag tahay in daawo la siiyo ama laga dhaadhiciyo xanuunku inuu hayo qaab noocee loo la dhaqmi jiray